السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داويال زميلنا FCTV وسومالي دوليسان جيري ومدحويني حسن شيخ غاري شركي لبعض دقدقة هاي ururka midowga Afrika ay isugu yimaadeen kaasoo ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya guul aad u weyn ayuu ka gaaray madaxweynaha asagoo ka guuleystay mucaaradkii iyo waliba dawladihii shisheeye ee hagardaamada waday ee ka mid yihiin Israa'iil iyo Imaaraadka sidaan la socono meesha waxaa la damacsanaa in dawladda Soomaaliya lagu qasbo oo maaragtay la yiraahdo la hadal mucaaradka waxaa la rabay in ciidamada Afrikaanka laga saaraya wadanka hadii kale waa inaad maaragtay saan rabnaa yeeshaa in la yiraahdo qorshahaas oo dhan madaxweynaha waa fahansanaa uu la socday nimankii mucaaradka ahaa waa tii la soo canaantay oo Imaaraadku ay soo canaanteen oo ayagoo xanaaqsan ay shir qabteen ayagoo sheegay in wadanka laga carari doono oo diyaarada dabada la qabsan doono markay baxaan ciidamada Afrika laakiin waxaas oo dhan maanta waa laga soo gudbay shirkii waa la maray waa la wada hadlay Soomaaliya way guuleysatay Afrika way taageertay dhowr pointi ayaan maaragtay ka hadli doonaa pointi koowaad waxa weeye madaxweynaha sida uu u diiday markii la damcay in loo meeriyo tilaabooyinka dawladda Soomaaliya ay qaadayso uu yiri kama hadli kartaan afaaraha dalka iyo gudihiisa siyaasadda gudaha shaqo kuma leedin Soomaaliya ayaa iskale internationalna looma hadli karo meel fiican ayuu ka istaagay laakiin qorshahaas inuu socdo ayay rabeen Imaaraadka iyo Yuhuud laakiin waa ka diiday qorshahaas markuu socon waayay ayaa maaragtay waxaa garab istaagay in qorshahaas uu diido madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo yiri Soomaaliya garab taaganahay haddii xataa ay baxaan oo ay diidaan Europeanka iyo Mareykanku inay caawiyaan African Union Africa way isku filan tahay annagana garab istaagayna wuxuu hore u sheegay wuxuu yiri annaga markaan iska xoreynayna Idi Amin America iyo Yurubna ma caawinay Africana waa isku filan tahay Africana waa iscaawin kartaa taariikhda xusi doonto madaxweyne Museveni sida garab istaaga Soomaaliya uu sameeyay haddaan soo qaadano hadalladii madaxweynaha sidii uu diiday arrintaas hadalkiisii waxaa ka mid ahaa sidan that's internal and with your guidance and your support and your advice we will do that homework by our here in this communique as I requested political matters of Somalia is very internal and Somalia does not want to be included in this communique. This summit was meant for security and the AU mission in Africa and the problem of financing that exists and that has been, and the issue of Al-Shabaab and all this, that has been covered very well. But for political matters that is internal and with your guidance and your support and your advice, we will do that homework by our own and not in this communique. That is not local politics. arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimaha African Unionka ciidankooda ay joogaan Soomaaliya ma aha kuwa isquseeya shirkaana ma quseeyo arrimaha siyaasadda gudaha Soomaaliya communique-ga ay ku soo saarteen qodobada noocaasana waa inay ka saartaan oo laga reebaa waa la aqbalay qodobadii madaxweynaha uu diiday uu ku celiyay waa la aqbalay waana laga saaray waa guul weyn in Soomaaliya aan waxba loo meerin karin wixii loo meeriyayna ay celin karto reject ay saari karto maaragtay waa guul aad u ballaaran iyo geesinimo madaxweynaha maaragtay uu ku dhiiraday way dhanka kale madaxweyne Museveni ayaa asagana si fiican uga hadlay in hadday baxaan Europeanka iyo maaragtay in Afrika looga baahan yahay isku tashi Soomaaliyana looga baahan yahay in laga difaaco
nimanka argagixisada ah wuxuu sheegay in problem Ethiopia ka jiro Suudaanna uu ka jiro Soomaaliyana ay hadda soo fiicnaanayso oo maaragtay Soomaaliya garab istaageeda uu soo dhamaanayo oo hadda Soomaaliya ay horumar gaarayso hadallada madaxweyne Yoweri Museveni waxaa ka mid ah sidaan. And this I shared in detail with the excellencies in the closed session. But maybe here I can just make 2 points. One is that Uganda does not have a border with Somalia. When therefore we decided to involve ourselves in Somalia, it was out of principle and strategy. Principle number one, we did not accept the chauvinism of Islamic groups who come here and waste our time that they want to impose themselves on society. We had the same problem with madaxweyne Museveni wuxuu sheegay in maaragtay aan loo dul qaadan karin maaragtay isku dayada argagixisadu ay sameynayso in wadamada Afrika ay faragelin ku hayso argagixisadana maaragtay loo baahan yahay in la iska difaaco oo la iska kaashado wuxuu sheegay in Soomaaliya aysan border la lahayn oo xuduud la lahayn laakiinse ay 15 sano u dambeeyay Soomaaliya ay Soomaaliya garab taagnaayeen Soomaaliyana ay garab taagnaan doonaan haddii cid walba ay ka tagtana Soomaaliya garab taagnaanayna macnaha shirka waxaa shir gudoominayay madaxweyne Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda Soomaaliyana waa u hiliyay maanta in Soomaaliya la yiraahdo Yurubna waa ka tagtay Afrikana waa ka tagtay ayaa la rabay hadalkii Sheekh Shariif ee ahaa markii Afrikaanku ay baxaan diyaaradaha lagu yaacayaa iyo hadalka Yoweri Museveni wax isku dhigma maaha Yoweri Museveni wuxuu yiri Soomaaliya waan garab istaagaynaa rajuu muujiyey Afrikana wuxuu yiri hal garab istaago laakiin Sheekh Shariif muxuu yiri ma rabna anaga inaan ku waabariisano ayadoo garoonka diyaaradaha laga wada buuxsamayo la kala cararaay waxa la rabaa tala inay jirto ka inaan ku waabariisano ayadoo garoonka diyaaradaha laga wada buuxsamayo la kala cararaay waxa la rabaa tala inay jirto ka mucaaradku waxaa haystaa waji xumo aad u weyn aad iyo aad ayay maaragtay u dhibaataysan yihiin sababtoo ah waxaa soo canaananaya nimanka loolan jiray Imaaraad iyo Israa'iil wajiyadooda waxaa ka muuqda fiir dadka Soomaaliyeed ee la kala geeyay fiirso wajigooda nimanka maalin walba la kala irdheenayo diyaaradaha laga wada wajigooda maxaa kaaga muuqda u fiirso wajiyadooda nimanka carada iyo xanaaqa ka muuqda sababtoo waa la soo canaantay waxaa la yiri ninkii waa guuleystay ninkii waa guuleysanayaa ninkii waa ridi laadihiin ninka rida warqadaan dirnay Afrikaanka warqadaan u dirnay Afrikaanka aan leenahay ninka la hadal maartay markay Afrikaanka soo bushgareeyaan Xasan Sheekh asaa idin imaan doona Xasan Sheekh soo cararaya adinkana maartay ka rida meesha oo doorasho waxa qabataan teendada la aadayo macnaha leen isku xiran weeye Yuhuudda iyo Imaaraadka iyo mucaaradka Yuhuuddu marka saaxiibo leedahay Imaaraadka Afrikaanka wadamo badan ay saaxiib leeyihiin Afrika soo dhex marsadeen waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Maxamuudow waa inaa mucaaradka ashir u qabataa waxay raalli ka yihiin iyo doorasho raalli ka yihiin waa inaa qabataa waa laga gudbay dowladnimadii wadankan wuxuu leeyahay baarlamaan sharci dejin sharci baarlamaankeena uu dejiyay oo doorasho ayay waxay rabaan inay burburiyaan oo yiraahdaan halada hadla mucaaradka maxaa mucaaradka loo hadlaya mucaarad dad madalaa jooga qaarkood xildhibaano weeye baarlamaankay joogan waa laga codbadiyay marka hadii laga codbadiyay oo laga guuleystay wax sharci ah wadanka ka socda marka sharci darro in madaxweynaha loo soo hoosgeliyo African Union loogu soo hoosgambado ayaa la isku dayay wayna socon weyday ra'iisul wasaare hore Khayre oo indhihiisu maaragtay ilin ku taagan tahay asagana sidaa yiri si maalinla ah ayuu u sii xumaanayaa xiriirka nagala dhaxeeya beesha caalamka
dawladaha deriska iyo annaga ayaa xiriirkoona sii xumaanaya waa kuwa ay ahayd inaan la yeelano xiriir joogto ah oon iskaashano mid dhaqaale mid amni iyo mid bulsho iyo mid ganacsiba waa ogtiin midowga Yurub inay Soomaalida ku soo rogeen inaan visa la siin karin ama ay culays ku tahay inay sugaan waqti dheer xitaa dadka dawladda u shaqeeya macnaha in Soomaalida fiisooyinka loo diido oo culays la saaro Yuhuudda iyo Imaaraadka ka dambaysa oo dalalka Yurub ka codsanaya oo lacag ku bixinaya oo leh Soomaaliya saa u gala in Soomaalida Mareykanka la ceebeeyo liya lacag dhaceen wadanka laga saaro waxa soo dhan Imaaraad iyo Yuhuudda ka dambeeya iyo kuwa lagu shaqeysanayo Soomaaliya oo sida kuwa Somaliland oo maartay dadka ka shifaya oo maartay dadka dacweynaya oo waxaas ka shaqeynaya kale marka dhaawacyadii Soomaaliya ay u geysteen Imaaraadka iyo saaxiibadood ayuu noo akhrinayaa ninka la yiraahdo Ra'iisul Wasaare Khayre ogtiin sidoo kale in dalka Mareykanka la aado inay sidaas oo kala tahay ogtiin in dawladda Mareykanku ay ku dhawaaqday in 500 milyan ee loogu talagalay ciidamada nabad ilaalinta ay goosatay ogtiin inay ka fikirayaan inaanay taageerin sii wadida kaalmada ay ciidamada siiyaan nabad ilaalinta dalka ogtiin inay waxaas oo dhan wuxuu rabaa inuu maaragtay Soomaalida qalbigooda uu galiyo walwal oo madaxweynaha uu walwal galiyo shirkan jiraa'id Khayre iyo ninka la yiraahdo Sheekh Shariif ay ka hadleen wuxuu ahaa maalin ka hor maaragtay intii maaragtay shirka UN-ka uu san dhicin ee Uganda aan la tagin ayuu ahaa madaxweynaha qalqal iyo tashuush lagu sii furayay laakiin madaxweynuhu waa nin adag oo arrintan maaragtay meel buu ka istaagay aan ku soconno bal hadalkii madaxweynaha Yoweri Museveni hadalladiisa waxay ka mid ahaa Khartoum, and now it was coming up in Somalia. So that was one of the reasons. The second reason was to extend solidarity to Ethiopia, because Ethiopia was being attacked because of Khartoum, and then now these groups in Somalia, we had to stand with them. That was the second reason. And this I shared in detail with the excellencies in the closed session. The chauvinist groups should leave us alone. We, the Africans of this area, dadka wuxuu leeyahay argixisada islaamistiga la yiraahdo waxay ahayd inay nasakeen daayaan Afrika ku mashquuleen Afrika baabiinayaan Nigeria Mali Senegal Somalia Sudan Libya you name it maaragtay Afrika dhibaato ku haysa argixisada ururada argixisada oo ay maal gelinayaan Yuhuudda iyo Imaaraadka ayaa Afrika dhibaato ku haya Afrikana inay u soo jeesato oo maaragtay iska difaacda loo baahan yahay qorshaha ugu muhiimsan waxa weeye hadda waxa muuqanaya Afrika inay fahantay isku tashi wax la yiraahdo oo Afrika ay doonayso canshuuraheeda inay iska kabto waxa kale oo hadlay safiirka AU-ga u fadhiya dawladda Masar oo commissionerka ah wuxuu sheegay inuu ilaalinayo inuu ku boorinayo African Union in la ilaaliyo madax banaanida Soomaaliya oo aan la faragelin oo la oran saan yeela iyo saan yeela dawladda Soomaaliya waa inaan garab istaagnaa ka taageernaa dhanka qalabka ciidamada difaaca dhaqaalaha laakiin arrimada siyaasadda gudaha yaan la faragelin sababtoo ah dal xor ah oo maaragtay sharcigiisa iyo nidaamkiisa iyo baarlamaankiisa iyo dawladdiisa la haweyay arrintaas waxay markaa ku noqonaysaa dhibaato mucaaradkii madaxweyne Deni Axmed Madoobe Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Khayre iyo ninka la oran jiray Roble groupkaas oo dhan shirkaan waxay ka filayeen inay ka soo baxdo
halala hadla nimankaas laakiin sheekaas xasan sheekh gaashaanka u daruuray masar iyo ugandana way taageereen african commissionerkana way baasgareeyeen soomaaliyana guushisaasay ku gaartay looma jabin loomana fariisan maaragtay madaxana hoos looma laalaadin ee waa la isdifaacay waxaa la yidhi ka saar qodobkaas meesha ka saar ayuu madaxweynuhu yidhi marka waraysi lala yeeshay sarkaal ka tirsan ciidamada africom ee maraykanka ayaa isagana waxaa la weydiiyey waxaa jirta in maraykanku uu soomaaliya taakulaynta ka goosanayo oo uu ka guurayo soomaaliya maraykanku arrintaa maxaa ka jiraa la yidhi hadaladiis waxaa ka mid ah sidaan Somalia going to take? There are a lot of speculations that saying that the US is pulling out of Somalia. Is that true? Because many Somalis legitimately have concerns that the US is turning its back to them. I don't think we're turning our backs on Somalia, but there are people in Washington and other parts of the country who said we've been here for several years. At what point does Somalia become independent and take care of these issues? At what waxaa la weydiiyey waxaa jira hadallo badan oo sheegaya maraykanka dhabarka xijinaya soomaaliya oo uu ka guurayo caawinaadna uu siin doonin wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi dhabarka ma xijinayno soomaaliya laakiin dad badan oo washington jooga iyo gobollo kale oo maraykankaaba ayaa waxay aaminsan yihiin waa maxay sababta soomaaliya ay dowlad u tahay haddaysan isku filnaan karin oo howlaheeda iyo dalkeeda iyo amnigeeda aysan sugan karin waana waxa haddeer xasan sheekh uu leeyahay annagaa amnigeena suganayna annagaa isku filan uu leeyahay oo ciidanka loo diyaarinayo macnaha maraykankii baa waxay leeyihiin war dowlad baa tihiine wax qabsada waana run soomaaliyana way isku filan tahay ciidanna way haysataa doorashana waa ku jirtaa wax badana way qabanaysaa aan ku sii soconna warkiisa some people are weary of this because we've been dealing with terrorism in other parts of the world for many years, and they want to see take this on and move forward. There's also many other issues around the world that the U.S. is involved in security issues that we have to pay attention to as well. And so at some point, people are asking, when is Somalia going to take charge of this, and when can we turn it over to them? wuxuu leeyahay ciidamada maraykanka howlo kale oo fara badan ku furan dagaalo kale iyo wadamo kale oo amnigooda aan ka shaqeynayna ugu furan marka dadku waxay leeyihiin inuu yiri Soomaaliya goormay ayadu maaragtay mas'uuliyaddeeda qaadaysaa oo wadankeeda ay amnigeeda suganaysaa macnaha waxaan rabnaa in Soomaaliya isku filnaato leh saas ayaan u baxaynaa waana maaragtay wax loo qaatayna waa ee maahan maaragtay in maaragtay aan u qaadano xumaan way jiraan wadamo ka shaqeynaya inay Soomaaliya burburto in Soomaaliya ciidamada hadii laga saaro ay burburayso oo qalqal adduunka la geliyo oo maaragtay investmentiga iyo ganacsiyada dadka gashan lahaa Soomaaliya ay cabsadaan Turkiga uu cabsado oo maaragtay wadamo fara badan ay Soomaaliya ka cararaan waa maaragtay propaganda Soomaaliya lagu buufinayo propagandadaasna waxaa loo soo dhiibay oo warqad meel walba u diray nimanka mucaaradka oo Soomaalida oo Sheekh Shariif iyo Dani iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo raggaas ayaa maaragtay warkaas u qawareejinaya oo raba Soomaaliya in laga dhigo inay burburayso oo ciidamadiina ay baxayaan Mareykanka lacagta u goostay laakiin rajo fiican aad timido African Union waxay yiraahdeen waa joogeynaa Soomaaliya waxaan dhigaynaa nafta waxaan haynaa maaragtay waa joogayaan ciidamada qarashkiina waa bixinaynaa Soomaaliyana waa garab taagnaanaynaa madaxweyne xasan sheekhna wuxuu leeyahay howleena anaga ku filan amnigeena waa sugan karnaa haddaa baxaysaan bax haddaa joogaysaan jooga maaragtay wax dhibaa naguma hayso Soomaaliya hore u socoto ciidamada la dhisaya wax walba la suubinaya Soomaaliya dhibaatada ku imaan karta kaliya waxa weeye mucaaradku inay hubinta qaataan ay dowladda Soomaaliya ku soo jeestaan waana wax ka suurooba sababtoo ah waxay u shaqeeyaan niman aan bini aadan ahayn waxay u shaqeeyaan niman ku raaxaysta daadinta dhiigga bini aadanka silcinta shacabka hooyooyinka iyo carruurta in rafaad la geliyo la laayo lugaha iyo gacmaha laga jaro dhiigooda la daadiyo qaxwooti laga dhigo guryahooda laga burburiyo niman waxaas ku raaxaysta oo ah imaaraadka iyo yuhuudda oo aan seexanayn haddaysan fiirsan qof silcaya haddaysan TV ka fiirsan ama video ka fiirsan qof silcaya
ma seexdaan nimankaas ayay u shaqeeyaan marka in hub loo soo dhiibo oo la yidhahdo dagaalama waa wax dhici kara waa wax hadda puntland looga cabsanayay inuu dagaal ka dhaco oo siyaasiyiintii puntland iyo waxgaradkii ay badbaadiyeen dagaalkaas inuu dhaco maaragtay soomaaliya khatar ayay ugu jirtaa dadka soomaaliyeedna waa inay fahmaan mucaaradkan inuusan mucaarad caadiya ahayn ay yihiin niman u shaqeeya dad kale sidaan la socono madaxweynaha hore sheekh shariif wuxuu sheegay imaaraadka inay $5 milyan siiyaan bishii waraysi buu ku sheegay $5 milyan maxaa loo siiyaa imaaraadka aragti oo tuugada oo dadka laaya oo wadamada isku dira miyaa $5 milyan bilaash ku bixiya soomaaliya ku burburinaya waa maxay dhibaatooyinku geystay oo kaleeto sheekh shariif maxaa u malaynaysa marka barnaamijku waa dheer yahay soo dhawaada noo shargareeya barnaamijka ma doonayaane inaynu dowlad ahaano maba doonayaane inaynu dowlad ahaano ayaan doonaynin madaxweynaha soomaaliya dalka uganda waxaa lagu soo dhaweeyey si aad iyo aad heer sare u ah waxaa ka muuqanaysa farxad sababtoo ah wuxuu isku haleynayey xargii uu isku soo xirxiray iyo raggii uu maaragtay wadahadalka la lahaa sida museveni iyo madaxweyne siisi iyo masar iyo kooxo kaloo fara badan oo maaragtay africa oo la shaqeynaya sidaa daraaddeed kalsooni ayuu ku yimid qodobkaasna inuu kusoo laabanaya ma uusan malaynayn laakiin waa laga dhex shaqaystay qodobkii markii la soo geliyena meesha uu iska qabtay madaxweynuhu guul aad u weyn ayuu soomaaliya usoo hayay madaxweyne xasan sheekh guusha uu soo hoyeyna waa guul taariikhi ah oo madaxweyne xasan sheekh soo hoyey oo dalka soomaaliya uu soo hoyey in maantay imaaraad iyo israa'iil aysan u meerin karin soomaaliya jihada ay aadayso iyo doorashada ay qabsanayso inaysan waddan kale uusan shuqul ku lahayn ayuu indhaha ka saaray waana guul soomaaliya u soo hoyatay oo maaragtay aan la iloobi doonin taariikhdan lagu qori doono iyo buugta sababtoo ah khatar ayaan galnay oo ah in la yidhaahdo doorashada qof iyo codka ha la joojiyo teendhaa lagu laabanayaa oo la keensado madaxweyne dalka aan horey u wadaynoo baabi'inaya oo imaaraadka iyo yuhuudda waxay rabaan suubinaya soo dhawaada mar kale halkan waa f c t v maysigu diraan ogaa kuwii danaheenna xabaali jiray maba doonayaane inaynu dowlad ahaano ma doonaya daawadayaal barnaamijka noo sheer gareeya soo follow gareeya like noo saara youtube-keena f c t v soomaaliya ayaa la yidhaahdaa isagana subscribe iyo like iyo share noogu qabta barnaamijka waa barnaamijkiina halkaana waxaan oga hadalnaa mar walba danaha ummadda soomaaliyeed iyo horumarka ummadda soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed guul walba iyo maaragtay wanaag walba soomaaliya ee leedahana waa soo bandhigaynaa halkan waa f c t v anigoo ah farxaan axmed sheekh farxaan ciro wadan salaamaya